Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Soo dhawaada dhalinyaro. Aad baan idin soo dhaweynayaa dhammaan dadkayga Soomaaliyeed, dhalinyarada Soomaaliyeed. Maanta waxaan sii guda gelaynaa casharradeena imtixaanaha ah ee ku saabsanaa Windows-ka. Waxaan qaadan doonaa cashar ku saleysan kombiyuutarka sidee uga saari lahayd program ku dhibay. Mararka qaarkood waxaa dhacda kombiyuutarkaagu inuu culays ku keeno programmada qaabkood. For example, kuwaad adigu soo degsatay oo ku shubatay, kuwaad adigu nacday, maaha kuwa defaultiga u ah ee kombiyuutarka inaad iska tirtirtid. Casharkan digniintiisu leeyahay waxa aad tirtiraysana waa inay waxaad hubtid yahay. Badanaa waxa aad iska tirtirtaa wax adigu aad kusoo shubtay kombiyuutarka ama material noqday oo ku dhibay ama kombiyuutarkaaga culays ku noqday. Haddaba wadadee u mari lahayn marka wadada aan u maraynaa casharkeena maanta waxa weeye wadadii aan horey ugu jirnay oo ahaa setting-ka. Ugu horreyn waxaan kasoo bilaabaynaa home setting oo ah shaashadan hadda horteena ee muuqata. Halkaas waxaan ku qoraynaa still finding-ka meesha ku taal find, add or remove programs oo ah qodobka koowaad hadda inoo muuqdo oo kan ah. waxa weeye ku dar ama ka saar program. Shalay maanta ka horeysa waxaan qaadanay add or edit or remove other users. Hadda waxaan qaadanaynaa add or remove programs sidii aan uga saari lahayn programka kombiyuutarka Windows-ka. Marka add baa ku dhufanaynaa, waxa kusoo baxaysa shaashada tan aad hadda inoo muuqato. Halkan waxaa taxan oo jooga dhammaan programmadii kombiyuutarka ku jiray. All waa kuwa ka digtoonow marka program kasta maaha inaad tirtirto. Magaca programka ku dhibay baa halkaa ka raadinaysaa. For example, hadduu dhib kugu hayo Microsoft Excel oo kale, hadduu kugu hayo programmada qaarkood, for example Mozilla oo kale, Office-kan oo kale, sometimes haddii dhibaato kugu hayaan. Programkan Teammate baa la yiraahdaa. Casharrada aan dhigan doono noogu jira Teammate AM baa la yiraahdaa. Programkan waxaa loogu talagalay qaabka auditing-ka. Insha Allah waa gaari doonaa inaan programkan aan dhigno habkii qof uu u sameyn lahaa inuu audit gareeyo company. Auditkana badanaana auditorka isticmaala. Kana waxaa la yiraahdaa Teammate Analytical oo isna auditka ayuu qaabilsan yahay. Isagana insha Allah waa qaadan doonaa casharrada aan qaadan doono ka mid yahay. Waa soo bandhigi doonaa. Hadda waxaa jira mid la yiraahdo Teammate Plus oo casri ah oo hadda dhawaan isagana soo baxay. Isagana waa ku dari doonaa. Laakiin ujeedada casharkeena maanta waxa weeye see program aadan u baahnayn programmada uga saari lahayd kombiyuutarkaaga. Aniga hadda mid baa jira program aan u baahnayn oo aan hadda waxiisa hadda igu hayn aan rabaa inaan ka saaro. waa ila daawanaysaan insha Allah. Programkan aan ka saarayaa Panda browser-kan. Click baan siiyey, kadibna waxaa ii soo baxday uninstall oo micnaheedu yahay ka saar, remove gray, dib uga saar. So marka click baan siinayaa uninstall. Again waxaan leeyahay tour. wuxuu ku maqan yahay siduu uga saari lahaa. wuxuu leeyahay ma repair gareeyaa mise waa ka tuuraa meesha gebigiisaba. So aniga waxaan leeyahay ka saar meesha haba ku haynin. Ma waxaan ku daraa qashinka. Are you ready? Wanted to uninstall? Yes. Remove the waliba tigta saar. Then say uninstall. Kadibna uninstall leh. Thank you for your using Panda browser. sidii macnaha Panda browser u install garan lahayd buu kugu mahadnaqayaa. Dan waxaa leedahay say okay.
haddaan halkan marka dib ugu noqono programskeeni kasoo bilow halkan ilaa meesha u dambaysa kuma jiro wax la yiraahdo panda ka heli maysid waxaan ku xijinay